Asalaamu calaykum waraxmatullah. Soo dhowaada asxaabay. Muuqaalkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa qaar ka mid ah orahyadii iyo xikmadihii Xasan al-Basri ee sii daawa muuqaalka. Waxaa la yaab leh in qof bini aadam ah oo ka tegitaankiisa adduunyo loo sheegay kuwii ka horreeyeyna ay tageen uu weli adduunkan ku sii dheeldheelayo. Inaad qof siiso maal adduun oo aad u tiro badan waxaa iiga fiican inaad hal mowduuc oo aqoon ah aad barto kadibna aad isaga sii barto. Qofkii ilaashada aakhiradiisa waxa uu helaa nolol adduun iyo mid aakhiro oo wada wanaagsan, balse weli lama arag qof raadiciyey nolosha adduun ee helay nolol adduun iyo nolol aakhiro oo wada wanaagsan. Adduunyadu waa 3 maalin. Shalay way tagtay, waxayna la tagtay wixii camal ah oo aad samaysay. Berri weligaa ma gaari doontid, balse maanta waad leedahay ee samee waxaad rabto oo waxba dib ha u dhigan. Geeridu waxay daaha ka qaaday xaqiiqada nolosha adduun, kama aysan teginna fursad uu ku farxo qof caaqil ah. Waxa uu leeyahay, Alle ayaan ku dhaartay, waxaan la soo noolaaday dad ay adduunyadu u ahayd sida carruur ay ku dul socdaan oo kale. Yacni waxa uu la jeedaa asxaabtii nebigeena suuban. Maalin maalmaha ka mid ah, Imaam Xasan al-Basri waxa uu ka yimaaday janaaso, kadibna qoyskiis ayaa ugu wacay inuu la cunteeyo, balse waxa uu ugu jawaabay, waxaan arkay geeri, weligayna joojin maayo dadaalkayga ilaa aan kala kulmo. Nin ayaa weydiiyey Xasan al-Basri sirta ka dambeysa inuu ka saahiday dunida. Waxa uu ku jawaabay, waxaan fahmay 4 arrimood. Midda koowaad, waxaan fahmay in risqiga la ii qoray uu qofna iga qaadanayn, sidaasna qalbiga ayaa ii xasilay. Midda labaad, waxaan fahmay in cibaadadeeda uusan qofna ii qabanayn, waxaanu ku bilaabay inaan cibaadadeeda anigu qabsado. Midda saddexaad, waxaan fahmay inuu Alle ii arkayo, sidaasna waxaan ugu dheeraaday xumaanta. Midda afraad, waxaan fahmay in ay geeri sugayso, waxaana bilaabay inaan u diyaargaroobo. Xasan al-Basri waxa uu yidhi, aasaaska xumaantu waa 3, faracyadeedana waa 6. Aasaaska xumaantu waa 3 oo waa xaasidnimada, bakhaylnimada iyo jaceylka nolosha adduun. Faracyadeedana waa 6, waa jaceylka loo qabo hoggaaminta, faanka, ammaanta, jaceylka cunidda iyo cabbidda, jaceylka hurdada iyo jaceylka nasashada. Waxa uu leeyahay, haddii aad lahaan lahayd cimrigii Nebi Nuux, boqortooyadii Nebi Suleymaan, iimaankii Nebi Ibraahim iyo xikmaddii Luqmaanul Xakiim, weli waxaad dhadhamin lahayd geerida kadibna waxaa jira 2 hooy. Haddii aad mid seegto, midda kale ayaad gelaysaa. Haddii aysan jiri lahayn 3 waxyaabood, aadanuhu madaxiis hoos ma uusan u dhigayn: jirro, faqri iyo dhimasho. Si kasta ha ahaatee, weli waa uu faanayaa. Waxa uu leeyahay, wax kasta waxa ay leeyihiin wax wasaqeeya, cilmiguse waxaa wasaqeeya bakhaylnimada. Nin ayaa soo galay magaalada Basra, kadibna nin ka mid ah reer Basra ayuu weydiiyey, waa kuma sayidka magaaladan Basra? Ninkii ayaa ku jawaabay, waa Imaam Xasan al-Basri. Ninkii ayaa yidhi, oo sidee ayuu ku noqday? Waxa uu ugu jawaabay, isagu Imaam Xasan al-Basri uma baahna maalka dadka ku nool magaaladan Basra, balse dadka ayaa u baahan cilmigiisa iyo aqoontiisa. Imaam Xasan al-Basri waxa uu leeyahay, qofkii raba inuu naftiisa ogaado ha isku bandhigo Qur'aanka Kariimka. Imaamku waxa uu leeyahay, waxa ii cuntamila oo aan la yaabanahay dad lagu waaniyey inay qaataan sahay, loona sheegay inuu wakhtigu dhammaanayo, ay weli fadhiyaan oo ay iska ciyaarayaan. Qaar ka mid ah asxaabtiisa ayaa u imaaday, waxayna ku dhaheen, hadalna anfaco inoo sheeg. Waxa uu ku jawaabay Imaam Xasan al-Basri, waxaad noqotaan kuwa ugu fog ee ka dheeraada waxyaabaha la idinka reebay, waxaad noqotaan kuwa ugu dhow ee waxyaabaha la amray. Waxaadna ogaataan in tallaabooyinka aad qaadaysaan ay kala yihiin mid ay naftiinnu diidayso iyo mid ay naftiinnu ogoshahay, ee u fiirsada tallaabada aad qaadaysaan.